muwaadin Soomaaliyeed ayaa shalay ganikii dambe lagu dilay dalkani Koonfur Afrika kaasoo ay duugtiisa ka soo qayb galeen Soomaali aad u tiro badan. muwaadinkan oo waqtiga la dilay ku sugnaa goobtiisa ganacsi ay burcad rasaas oo uga qaadeen durbana ku geeriyooday halkaasi. ciidamada ammaanka ee dalkani Koonfur Afrika oo sida caadada ah soo gaaray goobta ayaa ka sameeyay baaritaano kuwaas oo sheegay in dad u soo qabqaban doonaan. mar waliba oo ruux Soomaali ah la dilo waa la soo aasaa mana dhacdo dadyo loo soo qabqabto waxaana lagu rajo weyn yahay in safaaradda Soomaaliya ee dalkani Koonfur Afrika wax badan ka qabato gumaadka lagu hayo Soomaalida ku ganacsada dalkani Koonfur Afrika. si kastaba ha ahaatee rajada shacabka Soomaaliyeed oo ah in maalin maalmaha ka mid ah ay dib dalkooda ugu laaban doonaan ayaa maalmo ka hor waxaa magaalada Johannesburg ka duulay Soomaalidii ugu tirada badnaa oo dib dalkooda ugu laabanayay. عبد الفتاح علي سمتر الصبلالي، Somali Journal, South Africa.